بسم الله فيديو waxaad ka arki doontaa madaxweyne Muuse Biixi oo tirtiraya laba taariikhood oo madaxweyne Axmed Maxamuud Silaanyo uu leeyahay waa heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland iyo xisbiga Kulmiye war annaka go'aansanay markaanu intaas oo dhan isu soo maray Somaliland wax yiraaha maamulka Khaatumaan la shiraya oo la xaajoonaya oo arrimahana dhex yaalaanu diyaar u nahay iyo kanaba soo gaadhin iyo international community-ga u sheegeen safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo IGAD mid walba waxay nagu yiraahdeen waa idin soo socdaan Somaliland arrintaasina ku dhawaaqi doonaan waxaanu idinku boorinaynaa inaad soo dhaweysaan wada hadalka warsaasaanu annagoo miir qabna oo waxa dantayadu tahayna aan ka marin habaabayn yaanu go'aansanay Somaliland wada hadal inaanu la gallo Ali Khaliif Allahu naxariistay wuxuu sheegay sidoo ku bilaabmay wada hadalku mudaya marweyn waxaan soo dhaweynayaa midnimada iyo heshiiska maanta aanu kala saxanayno maamulka iyo madaxda Khaatumo kaasoo shacbiga Somaliland u horseedaya horumar iskaashi iyo isku duubni waxaanu fulin doonaa heshiiskan isla markaana waxaa waajib ku ah hogaamiyaha ibedeli doona dhaqangelinta go'aamada heshiiska waxaan baarsan yahay October 2017 ayaa Somaliland iyo Khaatumo heshiisku kala saxeexeen Caynaba waa Axmed Silaanyo iyo Ali Khaliif wax waa ku heshiinay annagoo miir qabnaanuna ku heshiinay war arrimaha qodobka ugu horeeya ah dastuurka la furaya war guddi baa loo saaraya war waxa inaga dhaxeeyaynu wada leenahay waa aaminsanahay inaynu wada abuurano war waxa naga dhaba inaan geed dheer iyo mid gaabanba u fuul war dadka iyaga aaminsan war dadka iyaga waxaanu isleenahay waxaad ku qancin kartaa waxa waraaqda ku yaala war waxaase wax walba waxa ka weyn dadku inay ficil arkaan wax jira ay arkaan isla goobtii waxa lagu magacaabay laba guddi waa kan Ali Khaliif isagoo ka hadlaya mar walba madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Silaanyo inuu mar walba koriyo hoosba u leeyahay dhaxal baan rabaa ummadana inaan uga tago idina qoliyihiina gudidu taa hawl baa inoo taala shirka dambe inta laga gaarayana dadkeeni intii rabta wanaag iyo midnimo iyo wixii la wada leeyahay goonyaha laga joogo sida Ali Khaliif sheegay Silaanyo dhaxal wax ku oolaha ummadda wax u tara ayuu doonay inuu ka tago muhiimna waa kan isoo mar kale sheegaya casuumad hargeysa loogu sameeyay saaxiibkay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud wuxuu kulli annagana soo jiitay fikirka uu leeyahay waxaan rabaa dalkan inaan dhaxal iyo ummadan inaan dhaxal uga tago taasaanu annakuna ku hiranaynaa daafkeenu waa isu ammaanay aniga Axmedna waxaan maqlayaa isku da'aad baa tihiin bal aniga qudhadaydana inaan xaggaana dhaxal uga tago xaggana dhaxal uga wada tagno waa ku soconaynaa marka aad iyo aad baad u mahadsan Ali Khaliif Ilaahay naxariistay wuxuu sheegayaa isaga iyo Axmed Silaanyo inay doonayaan inay dhaxal ummadda uga tagaano wax ku ool ay u reebaan marka laga hadlayo wasiir arrimaha dastuurka kale waxa la yiraahdaa wasaaradda waxa loogu soo daray wada hadaladii Khaatumo oo dastuurka ayaa la furaya bal arintaasi halkee ayay maraysaa hadaladii Axmed Silaanyo ee Caynaba waxa kamid ahaa hogaamiyaha iga dambeeya waa inuu heshiiska dhaqan geliya Muuse Biixi markuu xilka la wareegay ee doorashadii November 2017 ka bacdi wuxuu sameeyay wasaaradda dastuurka oo wasaarad kale ku dhaxtaray wasiirkani waa wasiirka dastuurka xilligaas waxa uu reestay TV-ga goobjoog Khalid Foodadi arrimaha Khaatumo iyo heshiiska iyo qodobadii lagu heshiiyay ayaa su'aalo laga weydiiyay sidoo uga jawaabay ilaayaga waxa weeye taasi waxa la yiraahdaa iyo maxaa dhahay dastuurku wuxuu yahay way kala duwan yihiin dastuurku waa qaranka Soomaaliland oo dhan buu jira cid kasta oo waxa weeyaan magacaas leh oo Somaliland ah iyo shacabkeeda marka wax kasta oo danteeda ah
waxa weeyaan shacabka Somaliland iyo dantiisa ah dastuurku waxa weeyaan iyo xeerarkiisu waxa weeyaan de mas'uul bay ka yihiin dastuurka khaatimo ma la furaya khaatimo dastuurka ma la furaya waraysiga wasiirka qof walba waxaan kula talin lahaa inuu soo daawado waa waraysi dheer markaa uu soo gabgaabiyay dastuurku wuxuu leeyahay nidaam loo furo heshiiska Cali Khaliif waxa ku jirtay in dastuurka la furo arintaasi wada hadalladii oo kale waa lagu soo hadal qaaday in badan ma jirtaa in dastuurka la furay baan ku weydiiyay wasiir adeer waxa weeye waxaan ku yiri Somaliland dastuurkeedu wuxuu mas'uul ka yahay wax kasta oo danta Somaliland ay ku jirto qorshihii dastuurka inta badan la hadalhayay halkee uu soo ku dambeynaya adeer dastuurka la hadalhayay anu garan maayo waxaad ka sheekeynayso meena noo sheegi karahayn adigu maadaama aad wasiirkii dastuurka tahay haddaan ahay wasiirkii dastuurka waa muhiim waxa aan ku sheegay inaad sideeda u qaadato waayo waxa weeyaan waa qodobada aad og tahay waxa weeyaan ah in nabad lagu wada noolaado in la heshiiyo in qarannimada Somaliland inay mid tahay ma isleedahay ujeedada wasaaradda qaybta dastuurka loogu daray muddo kooban bay sii jiraysaa haddii arrimaha Cali Khaliif iyo Khaatuma ay ka cabanayaan la dhameeyo qaybtaasi halkaas ku istaagaysaa waxaan u maleynayaa inay wax badan ka khaldan yihiin haba yaraatee dastuurka Somaliland aanad maxaa lahaa aqoon u lahayn Somaliland aanad aqoon badan u lahayn waxa weeyaan wasiir su'aasha mar walba waxay tahay adigoo raaliya waqtiga aynu ku ballanay inuu taag baahida aan ku leeyahay waxaan ka wada in haddaad su'aal dambe qabto ay waqtigeeda kala ahaato ma waxaan wasiir shukr waxaan jeclahay su'aal ku weydiiyo wasiir خلي وسير أنا ورئيس wasiirku hadalkiisa waxaa ka muuqanaysa xukuumadda musabbixi ee xilka kala wareegtay xukuumaddii hore Axmed Siinayo wax qorshe inaanay ka lahayn qodobka ama qodobada Khaatuma ay Somaliland kula heshiisay ay ka mid tahay dastuurka oo la furo hadda waxaan halka ku hayaa heshiiskii aanu la qorannay madaxweynihii hore ee waliba xisbiga kulmiye ah bal yaa qaabilsan heshiiska madaxweynuhu galay yaa loo raacayaa fulintiisa taayadu waaba lacib saqiire war dastuurka iyo shuruucda lagu tunto yaa damaanad qaadayo ka mas'uula hadalka Cali Khaliif ilaahay naxariisto waxaa ka muuqanaya oo aad ka dhigsanaysaa cid heshiiskii ka hoos qaaday ama halkii caynaba ka qaaday inaanay jirinba oo xukuumaddii musabbixi ee xilka la wareegtay halkii aanay kaba qaadinba wardaynu rabno arinta aniga iigu weyn teenaba intaynan gaadhin war wixii lagu heshiiyo ama waxa dastuurka ku yaala executive powers madaxtooyada iyo maamulka yaa ka ilaalinaya war horey noo soo martay war heshiisyaa la galay war ina cigaal baa ku tuntay ina cigaal waa madaxweyne waa fardi kuwa hadda joogay golaha wasiir madaxweynaha maanta jooga musabbixi baa ka marxaati kacaya in markaana la idin ka gardaraa sababtaad u tagteen ee Puntland u dhisteenna de waxay ahayd annaga halkana lagama rabe waxa yagaanu samaysanayna mar kale ilaahay naxariista Cali Khaliif wuxuu sheegay heshiiskii meel ay u raacaan inay la yihiin ay la galeen xukuumadda Siinayo wuxuu kaloo sheegay heshiis hore oo madaxweyne cigaal lala galay oo burburay oo madaxweynuhu u burburiyay musabbixina uu marxaati ka ahaa oo markaas ay haboonayd in uu wax ku qaato kaas oo uu kan fuliyo laakiin bal wax soo socda eeg sida alla socotaan bariyahan waxa ay dawladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Somaliland tusaale ahaan magaalada la yiraahdo Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac garaad Cali waxa kale magaalada Tukarraq ama ciidamadu ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darro ku tageen magaalada Baran iyo magaalada Dhahar
ayagoo halkaa ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen sidaasi awgeed dowladda Somaliland waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaas waa wasiirkii warfaafinta Somaliland guri barwaaqo ilaahay u naxariistay wuxuu sheegayaa Somaliland inay dagaal ku qaatay magaalada Tukaraq Muuse Biixi wuxuu xilka la wareegay 13 December 2017 8 January 2018 dagaal buu ku qaaday Tukaraq si uu u baabi'iyo heshiiskii iyo wada hadalkii Khaatumo uu la galay Axmed Maxamed Siilaayo Somaliland waxaan u sheegaynaa caalamka oo dhan iyo Soomaaliya annagu dagaal diyaar u nahay dalkayga joognaa waliba halka imka ciidanka degan yahay Tukaraq 70 kilomitir buu xadka u jira dastuurka Somaliland wuxuu qorayaa in xukuumadda Somaliland ay soo sugto xuduudaha Somaliland xilkii la yidhaariyo kamid dastuurka ay faraayeen baarlamaanka ay gudaba jooga shicib waraha ay gudaba jooga waa xuduud la tago waxaan ku doonayaa xuduudda ku tagnaa nabadgelyo Soomaaliya garan bayno abaabulka ka socda ee qabariga salka ku haya ee ciidamada la soo dhoobay wax alliyo wax maanta dagaalka loo abaabulayo garamayno hadday mid tahay suurtooymaysay waxba yeelan isku maaragtay madaxweyne Muuse Biixi oo bil madaxweynaha wuxuu sheegayaa xuduudka soo xidhiistiisa iyo ilaalinta dastuurka in lagu daba joogo shacabku ku daba joogaan oo ku doorteen baarlamaanku ku ilaalinayo sidaas uu dagaalka u qaaday ayuu inoo sheegayaa laakiin ma khusayso heshiiska xukuumaddii ka horeysay ee xisbigiisa ahayd ay la gashay Khaatumo ma khusayso ansixintii baarlamaanku ansixiyay iyo saxiixii madaxweynihii ka horeeyay uu saxiixay ee heshiiskaas la isla meel dhigay ummadda oo dhan ay naawilaysay isaga uma taalo taliyaha ciidanka qaranka Somaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo saraakiisha ciidamada militariga Somaliland ee Tukaraq ku sugan ayaa madaxweynaha uga warbixiyay bishii koowaad baa ciidanku degay dhowr dagaal baa ku dhacay dhowrkii dagaalna guul weyn bay ka soo hoyeen sanad guuradiisii hore bishii 11aad 2018 sanad guuradiisii wuxuu ku soo xusay jiida hore ee dagaalka ee Tukaraq madaxweyne Muuse Biixi I have had a good opportunity to discuss with the President the recent changes in the region, the challenges facing Somaliland, and of course in that regard we touched on the conflict in Turkaraq, in particularly how that conflict can be managed to avoid any waxaanu ka wada hadalnay sidii loo dhamayn lahaa khilaafkii ka taagnaa Tukaraq oo loogu dhamayn lahaa waliba si xal ah iyo wada hadallo sanadka 2018 bisha 11 waxa Somaliland yimi ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland waxa la isku yiraahdo wuxuu Muuse Biixi kala hadlay arrimaha Tukaraq iyo dagaalka meesha ka socda war xuduudka Somaliland ana raba in la daafaco laakiin inay noqoto annaka ka tashanay annaka ciidamo u dirayna oo ka bacdina meel dhexe oo halkana midhay Tukaraq waa maqashaane war Tukaraq maxaynu ka rabnaa bal gambara iyo Tukaraq waxay isu jiraan 20 kilomitir why in God's name maxaa gambara looga tagay oo Tukaraq loo tagay oo inta waxa dhimatay waxa ka daran Somaliland loo arko aggressive inay tahay oo diplomatically iyo politically ba isolated lagaga dhigay war dad baa diyaar u ah oo dhul kale oo raba cadaad maxay bahasha yoocada bal ninka tagaya Tukaraq iyo yoocada ka hor joogay waray arintaas aqli iyo bahashu waxaynu war siyaasad la xalaaleeyay weyna waxaanu noqdaan war bahashu qol madow inta la galgalayo oo xoogaa xasarad iyo war aan waxba ka jirin oo nervous inaga wada dhiga inta lagu mashquulayo war waxaan wax dhab oo xalaal ah oo gudan in miiska la saaro war anigu waxa qori bilada maxay Tukaraq loo tagay war Tukaraq gambare 20 kilomitir bay u jirtaa Soomaa
waxa ciidanka Somaliland gambare oo awalba ay joogeen oo dalkoo dhan joogeen waxa inta la duulay tukaraq loo tago 20 kilomitir u jirta anu ma garan war haddii ciidanka Somaliland aanu heshiino maamulka Somaliland war annaka diyaar waa xuduudka in bixin la tago annaka diyaar waa laakiin haddaanan heshiin oo waxaanu wada leenahay aanan dhisan tii anagu dagaal shuqul kuma leyn waayadan World Cup kan daawanaynay te kana ma World Cup bana looga dhigay ma dagaal ma dagaalanana ku shuqulba ku lahayn oo ciidanaga tala gelin oo aan telefishinka waxaanu ka maqlaa war ma gelayno war ilaa aan ka heshiino oo daacadnimo iyo wax dhaba aanu ku heshiino cad oo muran ma doonta ah war dagaal aanu gelaynayo cid aan ugu hiilinayna ma jirto si uu u burburiyo heshiiska ay Axmed Silaanyo iyo Cali Khaliif wada galeen Somaliland iyo Khaatumo dagaalkaas mashruuc ah ee tukaraq ayuu qaaday dadkiina waa ka gudbay cid uu la hadlay ma jiro cid uu kala tashaday ma jirto dagaal aan aqoon ku dhisnayn oo ujeedada kaliya ee laga lahaa in lagu burburiyo heshiiskaas ay galeen Axmed Silaanyo iyo Cali Khaliif buu ahaa maalintii madaxweynaha la doortay 90% dadka Soomaaliya Sanaag iyo Cayn ama bro Somaliland bay ahaayeen ama waa u janjeereen maantana anu tirada ma hayo laakiin 90 iyo wax u dhowtoona ma allow 20 ama 30 ay tahay khaladaynu inaku galay eedaynu galay iyo strategic mistakes aynu inaku sameynayna kuma iman Cali Khaliif Ibraahim naxariistay wuxuu tilmaamayaa sida madaxweyne Muuse Biixi uu kalsoonidii shacabka gobolka Sool ama reer Khaatumo uu u lumiyay Somaliland uu u nabcaysiyay uga jaray laakiin waa tuku iloway barta soo socotana tan isaga dhigay mar hadda ciidan wadataan oo iska noqonaysa 6 sanadood ka bacdi dagaalkii tukaraq garaado ciidan iyo hub wata ayaa soo aaday magaalada Laascaano waxa ay soo taagay Faysal Cabdi Bootaan oo yiri hub lama soo gali kartaa laakiin anagu waajibkan haysan waxa weeye mar haddii ay garaadadu ciidan wataan staff la socdo ay iska noqdaan ama inta dad ugu celiyo intaas ay anuna taasaan deenayaa فرماننا قرادة يدي باتين ومن احترامنا قرادة قبل كاتين ميلوي بنا قطالين بين وضلين هاي لكن مرحبا عيدا وضلتان واسكنوا قنص ummadda Somaliland waxba meel u yaala Muuse Biixina waxba meel u yaala isaga waxa ka go'an inuu burburiyo wax kasta oo heshiis ah oo wanaaga oo Khaatumo iyo Somaliland dhexmara wax kasta oo wanaaga oo Silaanyo uu ka tago oo Cali Khaliif uu ka tago ayaa meel u yaala taa Faysal Cabdi Bootaan uu sheegayna way beenooday oo may suura gelin oo tan u dhigay madaxweyne Muuse Biixi baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka ciidankii uu Faysal Cabdi Bootaan celiyay waa la soo daayay madaxweyne Muuse Biixi ayaa soo daayay magaaladii Laascaanood bay soo galeen sanad buu dagaal ka socday way qabsadeen magaaladii ciidankii Somaliland waa laga soo saaray heshiiskii Khaatumo iyo Somaliland heshiiskii Cali Khaliif iyo Silaanyo dhaxalkii Silaanyo iyo Cali Khaliif taariikhdii Silaanyo iyo Cali Khaliif halkaas ayuu madaxweyne Muuse Biixi ku burburiyay xisbiga kulmiye oo 20 sanadood waqti iyo juhdi geliyay iyo waxayba kala weynaa qof imikana waxaynu eegaynaa sida madaxweyne Muuse uu u burburinayo xisbiga kulmiye si uu u tirtiro taariikhdii Silaanyo muddadii uu xilka madaxweynaha ka hayay Somaliland ninkan hadlaya waxa la yiraahdaa Axmed Xasan Carwo waa odayaasha kulmiye ee qurbo jooga ah ee muxtaramka ah ee ehludiinka ah ee 20 sanadood kulmiye la bilaabay maantana taagan dhinacna aan u guurin bal warka uu inoo sheegay balka dhageysta marka waxaan la bal xusbiga ayaa ka badbaadi doona
qofka waxaase maanta aan arkay markii horta rag waaweyn ka baxay xasan siciid iyo waxdadii markii ay ka baxeen baan war maxaa jira soo waxbay ogaayeen waatan imika soo baxday madaxweynihii qaranku uu ku ololeynayo aniga iyo fooda xisbigana uu foodina golihii dhexe golihii fulinta wasiiradii nimankii loo dhiibay kaambeenka xisbiga maxaan ku yidhaha agaasimayaashii guddoomiyaashii ilaa guddoomiyihii labaad iyo kii koowaad ee xisbigu ay ku ololeynayaan xisbiga ha u foodina ee u fooda ururada kale laakiin madaxweynaha u fooda adduunyada xisbigu qaran buu ayuu la dhashaa generation jiilal baa kala dhaxla qofku isagu tagaa xisbigii haddii dadkii ilaalin lahaa ay sidaa u sadqeeyeen horta xisbi laga baxay ma jiro xisbigii waa la kala diray odhan maayo xisbi baan ka baxay waayo xisbiba ma jiro marka sidaas ay raggii gacanta ku hayay ay sidaas u dhaqmayaan mise ku aamini kartaa qaran dadka madaxweynaha xisbigiisii kaambeyn ugu jira inuu xisbigaasi u dhacoona soo bixin ugu kaambeyn garanayo ururo kale maxaad ku aamini kartaa lama aamini karo waa xusbi madaxweynihiisii u burburinayo waa taariikhdiisii ilaayo oo madaxweyne muuse uu laalaabayo oo iskaba raacinayo madaxdii xukuumadda ama kulmiye ee ololaha doorashada ku jirtay ayaa waxay leeyihiin urur hebella codka siiya madaxweynaha muusena codka madaxweynenimada siiya waa qorshe muuse bixi uu leeyahay si uu u tirtiro taariikhda siilaanyo ee xusbiga ku saabsan tii khaatumo iyo somaliland waynu aragnaa oo waynu ognahay halka ay maanta ka baxday kanna waa xusbigii cali khaliif ilaahay ha u naxariistay oo aada u murti badnaa oo dadka aan kula talinayo inay dhegaystaan maah uu madaxweyne muuse biixi ugu duur xulay cali khaliif ilaahay ha u naxariistay madaxweyne muuse biixi wuu uga leexay jeclo badnaa somaliland ninkiina cabdilla xasan dee meel aan waddan nin keliya xukumin oo xag ilaahna kaagaba sokaya suu sheegayo ifkana kugu dilaya ninkii wuxuu noqday niman reer abtigiisoo xaggaa iyo marqyaan yaa meel wuxuu yidhi halkanaan rabaa daraawiishta inaan kula legdamo marka intaa hore ee daraawiishta ahay dee waa taqiinay sayidka inaan la tabcayn karo oo la legdi karin mid xagga reer abtigiyo xagga ka yimi oo jaafaa juglaan waxbaba ogeyn yaa sayidkii tabca suray waa la wada qaylay halwareedhe wardiinta iyo dariiqada isu legad wardiinta iyo dariiqada isu legad ilaa niman xishoonin dagaal xeeli kama hayso madaxweyne muuse biixi intuu islahaa tirtir taariikhdii siilaanyo wuxuu xuduudkii somaliland keenay og somaliland la wada leeyahay aan ku celiyo somaliland la wada leeyahay heshiisku saasuu ahaa axmed maxamed maxamuudna waan ku mahadinayaa waa ku hambalyaynayaa waa mid taariikhi ah oo taariikhdu marba ciddii joogta ee say doonta wax u qorqorta maahee waa taariikh dhaba iyo guul runtii waxaan rajaynayaa inay noqoto 10 sano 20 sano ka bacdi ama heshiiskan waa hirgalo waana u egtahay inuusan hirgelayn waa u egtahay inuusan heshiiskaasu hirgelayn nasiib daro laakiin axmed maxamed maxamuud eed kuma leh taaxaasha ciddii eedda ku leh iyakaa ku yeelan doona waraabe naftiisana uma roona laf guri taallana uma roona wuxuu dumiyey dadaalkii loogu jiray somaliland la wada leeyahay oo walaalo ah oo gacmaha isqabsata oo horumar u dhaqaaqda wuxuu ku bedelay jabhado dagaal beelo hubaysan nacayb iyo colaad